السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيان عبد إبراهيم iyo channelkii Halabuur Ayaan leh marka hore subscribe dheh channelka lana wadaag asxaabtaada si ay kula dheegtaan qisooyinka la yaab kale ee uu soo gudbiyay channelkani kulanti wacan sheekadeennii xiisaha lahayd ee badmaaxa Sindibaad iyo toddobadii safarkii saddexaad qaybtiisii labaad wuxuuna bilaabay inuu raadiyo isagoo gacmihiisa adeegsanayay annagana waxaan ahayn kuwa dhinaca u soo cararaba maahe dhanka kale u carara markuu mid naga mid ah qabtana wuxuu ahaa mid u kala gooya laba qar qayle aad u xoogan ayuu qayliyay waxaana u soo gurmaday oo goobtii mid 12 shaydaan oo isaga oo kale ah sidiisana u xoog waaweyn markii aan aragnay gurmadkii u yimid ayaan kala cararnay ayadoo inteena badan u soo carareen dhankii iyo doontii aan xeebta ku diyaarsanay waxaana bilownay inaan cararno hase yeeshee waa la nagu soo gaadhay shaydaamadii ayaa markaas si xun noo galay weynana laayeen dhagaxmaan aad u waaweyn ayayna nala dhaceen ilaa ay asxaabtaydii oo dhami dhammaadeen waxaana ka badbaaday keliya aniga iyo mid safaraydii ka mid ahaa inteennii kala weyn laayeen markii aan badbaadnay ayaan soo baxnay sidii aan u soconnay oo badda ugu guda jirnay ayaan markii dambe imaanay jasiirad meel ku taalay waxaana ku degnay jasiiraddii waa intaasoo ay dad ku nool yihiin sidoo kalena waxaan cunno keenaaye hase yeeshee waxay noqotay jasiirad cidlo ah oo qofna uusan ku noolayn waxaan go'aansanay inaan habeenkaas halkaas seexanno oo subaxii safarkeena sii wadanno habeenkii markii saq dhexe la gaaray ayaa waxaa noo yimid mas aad u weyn aadna u xoog badan oo haddaad weyninkiisa aragto aad la yaabayso wuxuuna maskii bilaabay inuu cuno saaxiibkay ila socday isagoo sidiisa ah ayuu liqay waxaa noqday mid cabsidii haysay ku sii jibaarantay waayo maska marka uu saaxiibkay laqay waxaan maqlayay qajajacda iyo qababacda ka yeeraysay maska calooshiisa maadaama uu ahaa mid caloosha dhexdiisa ku jijibinaya sidii uu ku laqay oo kale ayuuna lafihii u soo tuuray anigii waxaan dhex galay god ka samaysan dhagax oo meesha ku yaalay si aan nafteyda ugu badbaadsado waxaana habeenkii ku bariyay godkii anigoo cabsidii i hayso ilaahay og yahay subaxii markii la gaaray ayaan doontii yareed ku soo laabtay badda ayaana isku soo shubay waxaana go'aansaday in toogtan haddiiba aan dhimanayo badda aan ku dhinto wixii aan socdo oon doontii la socotaba waxaan markii dambe la kulmay markab aad u weyn oo badda dhex socda markaas ayaan intaan farxay bilaabay inaan markabkii u gacan haatiyo waa intaasoo aan badbaado ka helaaye sidii aan markabkii ugu dhowaanayay uguna gacan haatinayay ayay markii dambe i arkeen waxayna bilaabeen inay i soo dhoweeyaan si ay ii badbaadiyaan alle ayaa mahad iska leh markabkii ayaa i badbaadiyey markii aan koray oo aan dadkii saarnaa la kulmay sidoo kalena markabkii sii fiiriyey ayay wax kasta waxay ila noqdeen sidii waxaan aqaano waxaan u tegey markabkii kabtankii waday yaa badanaa mise waaba markabkii jasiiradda iiga soo tegey badeecaddii ii saarnaydna kaasoo aan soo fuulay safarkaygii labaad haawa xaqiiqo waa markabkii jasiiraddii dhaymanka iiga tegey anigoo hurda nasiib wanaag kabtankii ayaan is aqoonsannay waan is waraysanay markaas ayaan uga warramay siday wax u dhaceen iyo wixii aan kala soo kulmay safarkaygii labaad iyo kii saddexaadba ayuu isna ii sheegay inuu in muddo ah i raadinayay oo badeecaddiina weli markabka saaran tahay oo aan la taaban wakhtigaas aniga waxaan ahaa mid aan waxba haysan waayo hantidii iyo badeecaddii aan watay ee markabka ii saarnayd waxay ku maanshowday badda oo waa tii daayarada naga dhaceen sidaas awgeed ayaan alaabtaydii hore dib ugu soo ceshtay kabtankii markabka ayaa markaas ii sheegay inay u socdaan jasiirad la yidhaahdo jasiiradda nabadda isla markaasna badeeco badan wataan wuxuuna ii sheegay in haddii aan rabo badeecaddayda halkaas ku iibsan karo aniga sidii ayaan yeelay waana soo baxnay ilaa aan jasiiraddii ka imid waxaana halkii ku iibiyey badeecaddii aan watay markii aan galay safarkii labaad anigoo lacag badan ka soo macaashay markii aan faa'iido badan soo helay ayaan go'aansaday inaan magaaladeydii dib ugu soo laabto waxaana ku soo laabtay magaaladii aan jeclaa ee Baghdad anigoo halkii saldhigay safarkii afraad ee badmaaxa Sindibaad iyo markii Sindibaad nolosha lagu duugay